siyaasad Rashiid Macallin oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka haya oo kulmiye oo maanta wareysi gaar ah siinayay telefishinka Horyaal ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay ayaa ka hadlay colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Ceelaf Weyn waxaanu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inaanay baryin nabadgelyada isla markaana awoodeeda isticmaasho ilaahay wuxuu leeyahay wa in ta'ifatani min almu'miniina iqtatalu yani hadii laba kooxood isdilaan faslihu baynahuma fa in baqat ihdahuma faqtul lati tabghi yani hadii laba dad oo kooxood islaami isdilaan waxa way dhaxgala oo sulxi sameeya hadii midkood xad gudubtana taa la dagaalama reer baaqan waxaan doonayaa reer Ceelaf Weyn ilaahay waxaan ka baryaa intii dhimatay ilaahay uu naxariisto intii dhaawacana inuu ilaahay dhaawaca u sahlo oo shaafiyo reer Ceelaf Weyn habaar iyo ducaba wala yiri habaarkiina idin kari waa ducadiina waxba idin qaban weydii waayo mar haddaanay niyad daacadnimo aanay jirin taa waxba suurtoobi maayaan reer Ceelaf Weyn waxaan leeyahay war nimankiina isdilayay ee dumarkii carruurta ka oohinaya maalin walba war Ceelaf Weyn daniid kuma jirto waxaan leeyahay kuwa dagaalka waday fidnimoolayaasha ay dibada ka riixayeen war muwatada iyo carruurta ka daayay oohinta maalin walba taagan war waxaan leeyahay nabad baa wax lagu helaa nabaddu idinkay dan idin tahay dadkii oo dhawaadiimi sheekh iyo shariif booladiimi dawladdu waa idin timi cid walba waa idin timi waxaan leeyahay war marun inta ilaahay ka yaabtaan ka daaya maatada dhibaatada xukuumaddana waxaan leeyahay dawladnimadu ma soconayso haddii nabadgelyada la bariyo xukuumadda waxaan leeyahay nabadda yaanay baryin cidna yaan laga baryin cidda rabashka wada ee dadkeedaas inay nastaan u diiday waa in gacan bira lagu qabtaa waxaan leeyahay dadkan wax laynaya ee dadna la xidhayna ha laga daayo oo qofka wax dilay ee gacan ku dhiglaha on the spot lagu dilo siyaasad Rashiid Macallin oo si wata hadalkiisa ayaa sidoo kale waxa uu carabay in shirka ay beelaha gobolka Togdheer ku qabsanayaan magaalada Burco looga baahan yahay in lagu qabto deegaanka Ceelaf Weyn halkaas oo shaqaaqa ka taagan tahay maadaama uu yiri magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay nabad tahay waxaan kaloo halkan baaq ugu dirayaa salaadiinta iyo cuqaasha labada beelood ee shirkii Burco ku balaansana waxaan leeyahay Burco waa nabadgeliyo shirka waa in loo raraa Ceelaf Weyn bay dhibaatadu jirtaa waxaanu rabashi jiraan salaadiinta waxaan ka codsanaynaa waxa wadaan islaax been naas beehayd wanaag beehayd marka shirkaas halku ku habboon yahay waa Ceelaf Weyn loo raraa leenahay ummadda deganayaan labada biloodna waxaan leeyahay waryaadeen waxa idinku waajiba cidda rabashka wada ina gacan bira saartaan dalku hadii nabadgeliyo helin horumar helmayno waxa kaliya aynu ku noolnana waa nabadgelyada dawladda waxaan leeyahay maanta bariyada way soo dhaaftay maalintii xoog iyo dawladnimadu ayaa taagantay war hal isticmaal baan leeyahay cidii inta ka hortimaadana waan ku raacsanahay waan la qabanaynaa Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaal magaalada Burco